assalaamu calaykum isku soo noqod wanaagsan waa qaybtii saddexaad ee buuggii magaalada jacaylka intaanan muuqaalkan u gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saartid muuqaalkanna aad like saartid lana wadaagtid asxaabtaada qaybta commentigana aad noogu reebtid ra'yigaaga anigu waxaan isku dayay inaan ku ilaabo waxaan qorsheeyey inaan u safro meel fog magaalo jidadkeedu adiga ay kugu dhammaanayaan balse aniga oo garoonka diyaaradaha jooga ayaan ogaaday inaad ku dhuumatay shantadayda jeebadaha surwaalkayga iyo jaakadayda codkaaguna wuxuu ahaa dhawaaqii ugu dambeeyey kaasoo rakaabka ka codsaday inay tagaan albaabka diyaaradda markii albaabka la soo gaadhayna adiga ayay ahayd oo cid kale mayna ahayn qofka ii jaray tikirka safarka oo markaana diyaaradda saarnaa adiga ayaad ahayd duuliyaha iyo shaqaalaha martida adiga oo keliya oo cid kale maysan ahayn cidda i kaxaysay kursigayga codkaaguna waxa uu ahaa codka keliya ee rakaabka ka daba odhanaysay ducooyinka safarkayga dhexdiisa adiga ayay ahayd joornaalkii aan halkaas ka akhrinayay iyo sheekadii aan akhriyayba iyo haweenaydii ag fadhiday iyo suunka badbaadada ee aan laabta ku xirtay iyo sawirkayga oo ka muuqday muraayadda daaqadda iyo daruurtii diyaaraddu ku dul socotay iyo buggii aan u cabbayey si tartiib tartiib ah markaan gaadhay dalkii ilowshaha waan isdhiibay waxaan bilaabay inaan goosto tigiryo kale waxa aad ahayd shaqaalihii safarka ee sharci gelinayay gelitaankayga oo waxa ahayd mid ka mid a bogagga baasaboorkayga cagaarnaa waxaad ahayd darawaladii tagsiga ee quruxda badnayd iyo shaqaalihii hudheelka ee dhammaan martida u dhoola caddaynaysay waxaad ahayd barkintaydii bustahaygii iyo daaqaddii roobku mar walba uu ku soo hoomanayay dalka ilowshaha gudihiisa ugu dambayntii waan isdhiibay oo waan aqbalay joogitaankaaga xooggan waxaan bilaabay inaan dalbado qadada 2 qof oon goosto 2 tigidh oo shaneemo ah oo aan si taxaddar leh u xusho 2 kursi oo ka dambeeya safafka dambe si aan isku dhaafsanno dhunkashada innagoo ka fogaanayna indhaha dadka faraha badan markaana keligay lugaynayay jidadka dalkii ilowshaha indhahaagu waxay igu eegayeen si feejigan dibnahaaguna waa ay dhaqaaqayeen iyagoo aan lahayn cod sida inay akhrinayaan sixir ama duco iyagoo leh anigoo adiga ayaan ku leeyahay adiguna anigaadi leedahay weligay waan ku jeclaan doonaa sida ay doonaan ha u arkaane markaan keligay lugaynayay jidada dalkii ilowshaha ugu dambayntii waan ogaaday in xitaa haddii aan ka fogaado inay jirin meel loo baxsado dhankaaga mooye maxaa yeelay waxaad tahay gabar i qabsatay oo qabsatay taako kasta oo iga mid ah waxaad weligaa igu sii jiri doontaa oo aad i raaci doontaa meel kasta oo aan tago weligayba kaalay igu qari indhahaas oo si fiican albaabada ii soo xidh hana ii oggolaan inaan maqnaado xitaa haddaan dalbado anigu maalin maalmaha ka mid a wakhtiyadii hore iyo wakhtiyadii lasoo dhaafay kadib markii ilaahay dhulka ku abuuray 3 maalmood dhammaan ashyaadu waxay qabsadeen xaflad waxaan ka soo qayb galay qof walba isagoo ku labisan dhar isku eg mid ka mid ah geesaha godka lagu qabtay xafladda waxaa taagnaa mid ka mid a dadka soo xaadiray oo sigaarka qaaliga ah cabbaya misna xidhan maskaaro ishu qabanayso laga sameeyey sayd iyo ubaxyo iyo qaar ka mid ah caleemaha ubaxyada oo fooda hore waxaa ku yaalay 2 xaraf jacayl waxyaabahan oo dhan ayaa hareerihiisa ku soo ururay waxayna weydiisteen ninka maskarada haystaa inuu iska soo saaro maskarada markii uu sameeyeyna waxay ogaadeen inuu yahay boqorkii saboodiska
iyo kala tagga. Kaale aan wada haddii wakhtigu fursad keliya ii siin lahaa oo dib ii celin lahaa wax yar intaan kula kulmin, oo aan heli lahaa go'aanka inaan ku sii nagaado sida iminka aan ku sugnahay, misna kula kulmo, ku jeclaado, kadibna aan la kulmo kala taggan, ama inaan ka baaqsado dhibtan si aan uga badbaadiyo naftayda iyo dhammaan xanuunadan oo dhan. Waxaad filanaysaa inaan dooran lahaa haddii jacaylku go'aan noqon lahaa, haddii wakhtigu dib u celin lahaa wax yar, waxaan dooran lahaa jacaylkaaga anigoo ka labalabaynaynin. Maxaa yeelay jacaylkaaga ayaa iga dhigay bini'aadam. Jacaylkaagu wuxuu ii sameeyey baalal, wuxuuna iga dhigay inaan dul heehaabo cirka. Shalay waxaan dib u akhrinayay dhammaan fariimahaagii, erayadaaduna weli way ku qoran yihiin, kuwaas oo markhaati ka ah inaad mar joogtay. Maxaan ku sameeyaa warqaddan oo dhan? Waraaqahaagu way ooyaan oo way diidaan khaanadaha kabadhka, waxay diidaan iftiinka, way diidaan inaan taabto, ma doonayaan inaan akhriyo, sida inay dhammaan waxyaabaha ku qori ay noqdeen sir. Waxay ila dhaqmeen sidii qof shisheeye oo kale. Haddii aan kula kulmi lahayn meel si kedis ah oo aad i dhaafto adigoo aan i ogeyn, qalbigaaga i jecel ayaa ka soo boodi doona, waxaana u socon doonaa sidii digaagad yar oo ka baxsatay meeshay ay ku xidhnayd, wuxuuna igu qabsan doonaa si xoog leh hortayda dadka oo arkaya. Markaad ku amarto inuu kuu soo laabto, wuu ka dhag adeegi doonaa. Markaad ku cadhootana, wuxuu ku odhan doonaa kaama cabsanayo. Markaad u hanjabto inaad tegi doonto, wuxuu kugu tilmaami doonaa gacantiisa si aad u tagto. Markaas ayuu farta kaa qaban doonaa, wuxuu ku geyn doonaa meel gooni ah, wuxuu kuu dhukan doonaa bishimahaaga, wuxuuna si tartiib ah kuugu odhan doonaa dhegta, anigu adiga ayaan ku leeyahay, adna adiga ayaa ileh. Ninkaaga soo socda waa qofkii ugu horreeyay ee aan necbahay ka hor inta aanan kula kulmin. Waa qofkii ugu horreeyay ee aan qalbigayga ka rajaynayay inuu dhinto. Qofkii ugu horreeyay ee aan dareemayo inuu awoodo inuu i burburin karo gacmihiisa, sida inaan ahay cayayaan uu ku qabtay gurigiisa, isagoo isku dayaya inuu xado hadhaaga cuntadayda. Sidee bay suurta gashay qof qalaad? Sidee bay ugu suurta gashay qof qalaad oo aan weligiis ku arag? Qof aan sinjiyadiisa ku qoyn ilmada baryada iyo ducada uu Alle adiga ku weydiisanayo inuu kaa qaato adiga. Kaliya bulshooyinka nasiibka darrada ah ayaa qaraabadu u doori karaan gabadh ninkeeda sida ay ugu doorato waxyaalaha kale. Wax kasta waa qasab marka laga reebo jacaylka. Jacaylka dhexdiisa, innagoo keliya ayaa go'aansana, innagoo keliya ayaana doorana. Ruuxaygu wuu kula joogi doonaa iyagoo aan ogolayn, xitaa adigoo aan doonayn. Haddii loo baahdo, waxaan ku duuli doonaa baalal aan la arki karin, madaxaaga kor mari doona, waxaan kaa ilaalin doonaa wax kasta oo shar ah. Waan ku dhunkan doonaa dhabanada, waxaan gacmahaaga ku masixi doonaa dhibcaha dhididkayga wejigayga. Waxaan kaaga warrami doonaa sheekooyin ka hor intaadan seexan, oo waxaad sii joogsan doontaa albaabka furan aniga oo ku ilaalinaya. Markaad hurdada ka toosto, cabsi kaaga timaada riyo xun, si degdeg ah ayaan kuu soo ordi doonaa. Waxaan kugu taageeri doonaa gacmahayga, waxaan kugu deeqi doonaa kalsooni aniga oo leh hawlwelin, anigu ayaa kula jooga halkan. Waxaynu iska dhiganaa inaan nahay kuwo nolosha ka qaacsan. Waxaa jira waxyaabo na dhibaya oo nolosheena xumaynaya, waxaana iska dhigaynaa inaynu arrimuhu saxan yihiin marka laga reebo inaanan rabin inaan dadka ugu muuqanno kuwo u baahan naxariis. Maxaa yeelay aragtiyaha naxariistu waxay dhaawacaan jirka. Aniguna waxaan ahay nin sagootiska waxyeello gaadhsiiyey oo ay nasiib xumo daalisay, oo aanan wadin inuu xamilo xanuun kale oo badan. Kala taggu waa qof xun, wuxuu nagu maaweeliyaa inuu yahay saaxiibkeenna ugu dhow, wuxuu nagu maaweeliyaa inuu weligiis nala joogi doono.
wuxuu nagu maaweeliyaa inaan fiicnaan doono haddii aynu dhegaysanno talooyinkiisa. Wuxuu nagu maaweeliyaa inuu yahay waddada keliya ee badbaadada. Waxa uu nagu dhaartaa inuu doonayo danteenna iyo dhammaan kuwa raacay inaan hallaan iyo dhammaan kuwa raacay inay helaan farxad. Laakiin markaan ku qanacno oo aan raacno, waxaan ogaanaa inaan dhibanayaal u noqonnay qof khiyaano badan, kaasi oo inaga xaday maalmihii ugu qurux badnaa ee nolosheenna kadibna inaga tegay sidii jaakad duug ah oo weligeed ku dhajisnayn doonta xasuusteenna. Shakigu waa caddayn ina tusaya inaynaan nafeena ugu kalsoonayn. Waa cabsida joogtada ee ay nagu sameeyaan sidaan uga samaynay iyagoo maalin ama maalin kale. Qofka qalbigiisa ku haya jacayl daacada wax ma khiyaamo, xitaa haddii inuu wax uu khiyaamayo ay tahay mid la hubo. Qofka qalbigiisa ku sida jacayl been ah uu khiyaamayn doonaa, xitaa haddii jidhka khiyaanadu uu yahay midaan macquul ahayn. Markaad maqan tahay waan ogaaday in qosolku mar walba uusan ahayn caddayn farxad. Maya, laakiin inta badan waxay u noqon karaan calaamado murugo. Marka qalbigu ka buuxsamo walwal, qosolku wuxuu noqdaa dariiqa uu qofka isku furfuro ama uu ku nafiso si uusan u dhaawicin laab qof kale. Jacaylku ma xadido xorriyadaha, jacaylku wuxuu bixiyaa xorriyad. Ninka ku xakameeya haweeney magaca jacayl waa nin aan jeclayn cid aan naftiisa ahayn. Marka haweeneydu ka baxdo qalbiga nin jecel, qalbigiisu si dhaqsi ah ayuu u gaboobaa. Wax kastoo agtiisa ka dhacana way dhibayaan. Xitaa dhibcaha biyaha ee ka soo dhacaya tuubo furan way dhibayaan. Codka saacadda gidaarka ku taalla way dhibaysaa. Codka caleemaha geedka ee shanqaraya way dhibayaan. Codka matoorka diyaaradaha duulaya 20,000 tallaabo dushiisa way dhibaysaa. Codka raadiyaha wuu dhibayaa. Codka garaaca wadnihiisu waa uu dhibayaa. Codka qulqulka dhiigga iyo xididadiisu waa uu dhibayaa. Marka haweeney ka baxdo qalbiga nin jecel, wuxuu noqonayaa mid keliya. Xitaa haddii dadka oo dhami hortiisa joogaan, wax kasta way ku adkaanayaan. Xitaa neefsashadu waxay ku noqotay hawl culus oo aan la qaadan karin. Fariin kasta oo ku socota qof kasta oo ka fikiraya guurkaaga waxaa laga yaabaa inaad u ekaato qof qurux badan, nadiif ah oo ifaya, laakiin ma ahan heerka aad ku xidhan karto iyada. Aniga keliya ayaa u qalma iyada. Aniguna waxaan ku noolahay dunida keliya si aan u caabudo Alleh, kadibna u jeclaado iyada. Kuma dheeraan doono. Waan ogahay in ragga guur doonka ahi aysan inta badan haysan waqti ku filan inay akhriyaan fariimahan dadka qalaad. Laakiin anigu qariib ma ihi. Anigu waxaan ahay ninka qalbigeeda ku jira. Si kasta ha ahaatee, waxba ma ahan inaan iska ilowno khilaafaadkeenna oo aan u qodlayno maalin kale si aan u soo afjarno nacaybka. Iyo kalow inaan kula hadlo, waxaan rabaa inaan kuu sheego in duruufaha murugada ahi igu khasbeen inaan qofka aan jeclahay ku aamino gacantaada. Waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad ogaato, laakiin waxaan dareemayaa inaan qasbanahay inaan kuu sheego wax adag xaaladda aan ku suganahay. Waxay la mid tahay inaan ka tago magaaladaadii aad boqoradda ka ahayd kuna wareejiso qof qalaad oo aan ku aamino karin inuu maamulo xero lo' ah. Laakiin ugu yaraan ilaali oo daryeel iyada oo u naxariiso xaalkeeda. U tur qalbi-jabkeeda, daciifnimadeeda u naxariiso si aad farxad u geliso. Waa inaad iga tirtirto xasuusteeda. Inkastoo hawshani aysan macquul ahayn, haddana haddii aad u samirtid, waxaa laga yaabaa inaad awooddo inaad iga tirto maskaxdeeda. Xaqiiqatan, ma jiro qof jeclaan lahaa in lagu tirtiro xasuusteeda ee qofkii uu jeclaaday, laakiin waxa uu jeclaan lahaa markuu duruufuhu ku khasbaan kala tagooda inuu helo meel xabaal ah oo ku jiro xasuusta qof uu jeclaaday. Laakiin maxaan sameeyaa? Jacaylkaygu wuxuu ka sarreeyaa isjeclaanta. Maxaan sameeyaa haddii aan isku arkayay aabbaheed tan iyo markii aan jeclaaday? Ugu dambayntii, haddii aad rabto in madaxaaga
ay ku sii jiro jirkaagu, gacantaaduna ku dhegnaanto garabkaaga iyo carabkaaguna ku jiro afkaaga, ha dhiibin iyada. Waxaan kuu rajaynayaa geeri degdega. Waxaan booqdaa meeshii aan markii ugu horreysay kugu arkay. Waxaan istaagaa meeshii aan taagnaa markaan arkay indhahaaga oo wadnahaygu si xoog leh u garaacmay. Ma aanan kuu qoslin markaas, ma xasuusataa? Maxaa sababtoo ah inaan aqoon sida loo qoslo, ee waxaan ka cabsaday inaan afkayga furo, markaasna wadnahaygu kugu soo boodo isagoo u diyaar ah inuu kugu soo boodo. Marnaba ma aadan ahayn qof qalaad. Xitaa maalinkii ugu horreysay aan kula kulmay, waxaan dareemay inaan hore kuu aqaanay. Waxaan si fiican u garanayay labadaas indhood, sidii inaan jeclaaday waqti hore. Laga yaabaa waqtiyadii hore ee taariikhda, ama laga yaabaa waqtiyadii dhexe, ama laga yaabaa waqtiyadii mugdiga. Waxaa laga yaabaa inay ahayd xilliyadii khilaafadii Umayyadeed, ama waxaa laga yaabaa inay yihiin xilli mustaqbalka aan weli iman. Markii aan markii ugu horreysay ku eegay, waxaan dareemay in adduunka oo dhan uu ila heshiiyey si aan kula kulmo. Maxaa sabab u ah maalmaha jacaylku inagu dhaafaan si dhaqso ah? Maxaa sabab u ah maalmaha kala taggu inay dheeraadaan oo ay u muuqdaan inay weligood dhammaan doonin? Si kasta oo aan ogahay inaanad go'aan ku lahayn kala taggan, haddana markaan isu eego kuma cafinayo. Ma jiro cudurdaar sharaxaya maqnaanshaha, xitaa haddii sababuhu cad yihiin. Laakiin waxaan iska dhigaynaa inaan aqbalno cudur darrada keliya si aan u aamusno qalbiyadeenna, kuwaasoo weligood ilmayn doona. Sidii ilmo niyad jabsan oo ku dhigay daafiyada waalidkiis si uu u raaco ilaa ay ku yidhaahdaan si ay u musiyaan, haye waana raaci doontaa. Kadib markii uu kabihiisa doontay ee uu soo noqday, wuxuu ogaaday in labadooda waalid ay ka tageen oo ay ka tageen isaga. Mar ayaad igu tidhi, ii sheeg waxaad jeceshahay oo aan sameeyo si aad ii jeclaato in ka badan intan. Markaas ayaan aamusay oo aan kuu jawaabin. Ma ahayn wax kale marka laga reebo inaan ahay nin bari ka soo jeeda. Ma ahayn nin jacaylka wax badan ka yaqaana. Haddii waqtigu dib ii celin lahaa, waxaan ku odhan lahaa ila joog. Taasi ayaan kugu filan si aan kugu jeclaado intaas in ka badan. Magaalada jacaylka waa magaalo dhulkeeda laga oggolayn ilowshiyaha, midhaheeduna waa midhaha isdilka oo la cuno innagoo aan ka walwalin nolosha. Waa magaalada geerida laga jecel yahay, taasi oo aan si madax adayg ah ugu raadino khariidada qadarka ilaa aan ka gudubno darbiyadeenna oo aan aragno murugada dadkeeda. Waxay ogaanaa in magaalada jacaylku aysan deganayn dadka caqliga leh. Jacaylku waa maadda adag. Qadarku wuxuu nagu qasbi doonaa maalin maalmaha ka mid ah in lagu daro jadwalka nolosha si aan u ogaanno inay tahay maaddo la keenay si aan qofna ugu guulaysan. Daryeelku waa shayga keliya ee damaanad qaadi kara sii socoshada jacaylka. Laakiin isticmaalka xad-dhaafka ahi hal dhinac waxay ay qofka soo gaadhsiintaa dhaawacyo, taasina sababta u noqota in la waayo. Waxaa laga yaabaa in dayaca uu yahay cadowga ugu weyn ee jacaylka, laakiin mararka qaarkood waa in la adeegsadaa sidii naxdin koronto oo kale si uu jacaylku nolosha ugu soo noqdo marka wadnuhu si lama filaan ah u joogsado. Ii kaale aan kuu sheego waxaanan marnaba kuu dhiiran karin inaad qirto. Waan isku dayay dhowr jeer inaan ka baxsado jacaylkaaga oo aan kaa cararo, laakiin indhahaagu mar walba way xoog badnaayeen. Mar kastoo aan isku dayo inaan kaa baxsado, waxay xoog igu soo jiidi jireen si aan hoos ugu dhaco. Indhahaaga hortooda waxay ahayd sida qof la haysto oo qarqoomay, oo wax kasta uu awoodo sameeyey si uu u badbaado, laakiin ugu dambeyntii isdhiibay sababtoo ah wuxuu arkayay nibiriga oo ku soo dhowaanaya. Markii aad maqnayd, marnaba kuma waayin. Sideen u waayi karnaa kuwo aynu ku sidno qalbiyadeenna sidii sixir, ama sidii lacnad, ama sidii shay aan la awoodin in la ilaabo? Markii aan buuggan akhriyo, waxaan maqlayaa codkaaga oo igu dhex milmaya, misna i akhrinaya erayadan aniga.
Markaan wax qoro waxaan dareemaa inaad adiga iga dambaysid oo aad daawanaysid qoraalladeeda. Markaan maqlo sheeko qosol leh, waxaan maqlayaa qosolkaaga. Markaan maqlo halxidhaale, waxaan maqlayaa adigoo qiyaasaya jawaabta. Markaan dhegaysto abwaan, waxaan maqlayaa adigoo isku celinaya ereyada ugu dambeeya ee gebigiisa. Markaan maqlo xadiis suubanaheennii ah, waxaan maqlayaa adiga oo alle dembi dhaaf weydiisanaya. Jimco kasta waxaan maqlaa adiga oo suuratul-Kahfi gudahayga ka dhex akhrinaya, sidii oo aan ugu kala fogaanay keliya inaad iigu dhex noolaato. Shalay walaalkay ayaa wiilkiisa yar weydiiyey, imse tir buu islaamku leeyahay? Waxaan gudahayga ka maqlay codkaaga oo aad u hooseeya, adiga oo ii sheegaya 5. Wiilkii walaalkay ayaa isoo eegay qaab uu wax iigu sheegay oo kale. Kadibna wuxuu u jeestay aabbihiis oo ku yidhi cod uu S uga beddelay xarafka Esh. 5. Markii uu wiilka walaalkay ka badbaaday ciqaabta aabbihiisa uu kula sugayay khaladaadkiisa, waxaan ku maqlay adiga oo u sacbinaya sidii adiga oo u hambalyeeyay badbaadadaasi. Waan dhoola caddeeyay aniga oo murugo dareemaya. Ugu dambayntii waxaan rumaystay inay gabadhi ku jirto. Waxaan bilaabay inaan ku dadaalo xidhashada dharka ugu fiican markaan la jiro saaxiibaday, sababtoo ah waan ogahay inaad iga basaasi doonto gadaal. Darbi igu xeeran. Waxaan xasuustaa maalintaas markii gabar maraysay waddada, sidii masayrkaagu kugu qasbay inaad soo baxdo oo aad ii soo dhowaato sidii gabar aragtay ajaanib u soo dhowaanaysa reerka. Waxaan xasuustaa markaa sidaad wejigayga labaad gacmood ee aan la arki karin iigu jeedisay dhanka kale, adigoo sugaya inta gabadhu ka libdhayso horteeda adiga oo ku qaylinaysa cod cara leh, tag oo mar dambe halkana soo marin. Codkaaga aan la maqlin wuxuu sababay 2 ilin inay ku dhacaan dhabankayga ka hor intaanan kor u qaadin gacantayda si aan u masaxo. Gacantaada macaan ayaa iga masaxday. Kadibna markii gabadhu leexatay oo qalbigaaga ku degay inay tagtay, waxaad ku laabatay meeshaadii gadaal darbigii janjeera si aad u dhammaysato hawsha basaasida.